بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى يوم هذا تبارك وتعالى أولا وآخرا inoo suurtageliyey khayrkan laga warramayo iyo kitaabkan laga faa'iidaystay laga bilaabo hindisihii uu doctorku kitaabka ugu qalab qaaday ilaa dhammayntiisa ilaa ilaahay inuu qadaro inuu Nairobi yimaado oo kitaabka ku daraaseeyo. ilaahay baa mahadda iska leh, ilaahay baa waafajinta iska leh, isagaa mudan markaynaan u mahad celinno. bacda daalika waxaan u mahad celinaynaa cid walba oo sabab u ahayd in kitaabkaasi Nairobi lagu akhriyo lagana faa'iidaysto. sheekheena sheekh maxamed cismaan calasow oo martiqaadka lahaa sabab u ahaa sheekhu doctorku inuu yimaado magaalada Nairobi, aad buu u mahadsan yahay. intaa kadib waxaan leeyahay soo dhowaada dhammaantiin dadka xuduurka ee ka soo qayb galay xafladdan. u horeeya wasiirkeenna wasiir ducaale, ilaahay khayr ha siiyo, oo caadi ay u tahay munaasabaadkan inuusan runtii ka maqnaanin duruuf kastoo haysata. isagana waa u mahad celinayna, jazaahu allahu khayran. intaa kadib hadalka la soo gaabiyaa la yidhi, waana mudan tahay in la soo gaabiyo xafladaha. in hadalka lagu dheeraado waa laga fiicay. marka aniga waxaan ku soo gaabinayaa, ku soo koobayaa mahad celintaa kadib kitaabka ardadii ka faa'iidaysatayna allah ku anfaco. doctorkii kitaabka diyaariyey ee akhriyeyna miisaanka xasanaadka allah u saaro, ilaahay ha waafajiyo wixii ka dhiman inuu dhammaystiro. innagoo ka faa'iidaysanayna ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmigaasi mid naafica allah ka dhigo. dhowr mulaaxado ayaan intaa ku kabaya. midda koobaadi waxay tahay, ama dhowr codsi. midda koobaad waxay tahay markaska sheekh maxamed cismaan calasow masjidu nuurayn oo arrintan sabab u ahaa. waxaan ka codsanaynaa maaddadii la duubay in la hagaajiyo, oo iyadoo hagaagsan ama flashka lagu shubto oo la baahiyo oo duruustiiyo sideeda u nidaamsan. dhaxalkaasi in isagoo nidaamsan uu markasku isu taago insha allahu tacaala laga soo raadsado. miidiyahana hadda si qulban buu ugu dhex jiraa in muxuu ahay la hagaajiyo oo meel walba ardadu ka heli karto. arrinka horta markaskii sheekha iyo sheekh maxamed cismaan calasow baan ka codsanayna. arrinta labaad ama codsiga labaad waxaan ka codsanaynaa doctorka, oo waxaan xoojinayaa doctorku nadmiga hadda waa nadmigii oo mujarad ah, laakiin wuxuu u baahan yahay tacliiqaad yar yar. markuu hadda akhrinayay si kooban buu u akhriyey. anugu ardadii fadhida ma ahayno waa ka mashquulay, laakiin netkan kala socday oo meel buu ii marayaa hadda. marka ardadii oo wijaadada ku qaadatay baan ka mid ah. marka inkastoo laga yaabo inaan shahaadadii iyo la igu talagelin aniga, laakiin insha allahu tacaala markeedaan raadsan doonaa haddii alla idmo. taana waxaan leeyahay aad bay muhim u tahay inuu doctorku tacliiqaad yar oo tawdiixiya oo uu ku caddaynayo nadmiga meelaha waxoogaa ishkaal ku jiro inuu saaro. aad bay muhim u tahay. si gooniya isagoo ruuxu dhagaysani buu ka faa'iidaysan karaa ruuxii markaa wax garanayay. iyadana codsigaas doctorka waa u jeedi lahaa, codsadii hore waan ku dari lahaa. midaan ku gabagabaynaya waxay tahay fiqhiga in la barto, oo diinta fiqigeeda, fanniga fiqiga la barto waa qaybaha ugu muhiimsan diintay ka mid tahay. waana qaybta ay bulshadu ugu baahi badan tahay, waana waxa ugu badan ee ninka culimada la weydiin doono waaye ee bulshadu ku weydiinayso. waana qaybaha aan aad u fududaysanay waayahan dambe. sidaas daraaddeedna ay u yaraadeen culimada dadka fuqahada ee ka jawaabi kara
مسائش قارها نوازيش أما عصب نولش كعصب وحكيني فقهي ولا كان بيدحي أرجع مركا إنه فقهي لصون ولا يو هي استنباطات كعلماء أي كلام بحين كتابك السنة ده آد بيمه متاح لكن وحنقيه لها أرنتو ينكبحن ميزانك فقهي هذا اللوجس يسن كان فقهي عيبتي سوح ونقضي أي داتكو كرليان سبب عيب ماله إن لو تعصبه وتعصب كي مذاهب تديب أصول نقض عيبتك لا كرلان كرت وحي تهي النصوص تي فقهي كل سنة وقرآن كي السنة أحي إن لفظو ديسته وأقواشي أهل العلم استنباطات كودي لغا حوجيو نصوص تي قرآن كي السنة وين العدايا فقهي مركو دركي آفاتك كرنا شبه كم من نقطة أرجع مركو وحن لاقي طلبة العلم هل يزوم ميزامو أصل كي أو قرآن كي السنة دي إجماعي أدلة ده يصيدوا كلام استنباطات كي فقهي علماء كلام بحين وكل بينا دينا وياعي كل بينا دينا وبدني أنا نور إلى لأنه لحد نمدا إنه إلى لأن ميزانك يضن ولا جامرمان وضد بدنا واحد ركيسة هذا مركب فقهي أي برنا إياه فقهي مذهبي إن لغو تفقهه مركز ضمانك كفقه المقارن كلو بدل لو قد بيواسيد لو باهي لكن أقواش أهل العلم يقول النصوص معها أقواش أهل العلم يقول اجتهادات قد يصيب وقد يخطئ لكن واحد معصوم كأهوى النص كواي النص كمركة إلى لنتي سمر والبوائن النقطة شيء كمنان تله دكتور خير الله سيدرسك مركو آخرين يعني وحوي مسألة والبا ماشى لقى قاطع حديث كلا قاطع ضعيف مياه صحيح مياه وتلمامه وتلمان كوم وكبحنيه وين أساسه كلا على مركب مسألة وين لو عليه أصل كذي لو عليه هنا النقولين أقواش كلي جود أو مجردة سيد النصوص وكلا إن الله لا رقمين كتبنا إن سنفقه إن جلاد تركين وصوشي وكل سنة إنه سنة جلاد تركين قضب كاسين وبرارجين لها وما أسنتي وتقول لي رالي هذا بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته